hubka nukliyeerka wuxuu ka mid yahay mowduucyada ugu xasaasisan siyaasadda iyo amniga caalamka. Tan iyo markii la sameeyay hubkii ugu horeeyay ee nukliyeerka dagaalkii labaad ee adduunka, dalalka ugu awoodda badan waxay isku dayeen inay gacanta ku hayaan tiknoolajiyadan si aysan ugu faafin dunida inteeda kale. Sababta ugu weyn ayaa in hubkan uu leeyahay awood burburin taasoo khatar weyn ku ah nabadda iyo xasilloonida caalamka. Dowladaha awoodda leh gaar ahaan kuwa leh hubka nukliyeerka sida Mareykanka, Ruushka, Shiinaha iyo Faransiiska iyo Ingiriiska waxay ku doodayaan in ilaalinta faafitaanka hubkan ay tahay lagama maarmaan si looga hortago dagaallo baahsan oo burbur iyo dhimasho aad u weyn geysta. Dhanka kale, dalal badan oo horumaraya ayaa ku adkeysanaya inay xaq u leeyihiin horumarinta tiknoolajiyada nukliyeerka maadaama ay ka mid tahay xuquuqaha ay siisay heshiiska caalamiga ee ku saabsan tamarta nukliyeerka oo si nabadoon loo adeegsado. Iiraan waxay ka mid tahay dalalka sida weyn looga muransan yahay mashruuceeda nukliyeerka, inkastoo Iiraan mar walba ay ku adkeysanayso in barnaamijkeena ujeedkiisu yahay tamar iyo cilmi baaris caafimaad. Haddana reer galbeedka iyo xulafadoodu waxay ka cabsi qabaan in barnaamijkan uu ku dhammaan karo saameynta hubka nukliyeerka, taasna waxay dhalisay muran siyaasadeed, cunaqabateyn caalami ah oo la iskugu dayay in lagu xakameeyo awoodda nukliyeerka Iiraan. waa idin salaam saaxiibayaal, magacaygu waa Xaliimo Daawud. Intaa gudaha u galin warbixinteena maanta waxaa ka codsanayaa inaad subscribe ii dhahdo janalka, laagtan aad ii saarto. Janalkan waxaad ka helaysaa xogaha sirdoon, dambiyada qarsoon ee xogaha caalamka. Ha inoo bilaabo markaan warbixinteena maanta. Barnaamijka nukliyeerka Iiraan wuxuu asal ahaan kasoo bilaabmay 1950-meeyadii xilli uu socday qorshaha caalamiga oo Mareykanka hormuud ka ahaa. Iiraan waxay rajo weyn ka qabtay in dalkeeda noqdo mid casri ah oo la jaanqaadaya quwadaha reer galbeedka, wuxuuna aaminsan yahay in tamarta nukliyeerka ay tahay furaha horumarka mustaqbalka. Taasi waxay horseeday in 1957 Iiraan iyo Mareykanka kala saxiixdaan heshiis. 1970-meeyadii waxay xoojisay mashruuc iyadoona aasaastay hay'adda tamarta nukliyeerka Iiraan sanadkii 1974. waxaa la qorsheynayay in 20 sano gudahood la dhiso in ka badan 20 warshadood oo koronto nukliyeer ah. heshiisyo waaweyn oo lala galay shirkado reer galbeed ah waxaana bilaabmay mashruuca uga caansanaa warshada korontada nukliyeerka. isla waqtigaas Iiraan waxay saxiixday heshiiskii NPT si ay u muujiso barnaamijkeeda inuu yahay mid nabadoon. laakiin xaaladda si buuxda waxay isbedeshay markii uu dhacay kacdoonkii islaamiga ee 1979. maamulka cusubna wuxuu jebiyey xiriirkii Mareykanka iyo reer galbeedka. shirkadihii shisheeyana waxay ka baxeen mashaariicdii, qalabkii dhismayaashiina waa la dayacay, waxaana la hakiyey dhammaan qorshihii nukliyeerka. markii uu qarxay dagaalkii u dhexeeyay Iiraan iyo Ciraaq 1980, xaaladda barnaamijka nukliyeerka Iiraan aad buu u adkaaday. Ciraaq waxay si weyn uga cabsanaysay in Iiraan ay yeelato awood nukliyeer, sidaas darteed Ciraaq waxay si gaar ah u weerartay xarumaha muhiimka ee warshada nukliyeerka. duqeymo dhowr ah ayaana sababtay burbur weyn, taasoo keentay in mashruucii istaago muddo dheer. farsamayaqaano reer galbeed ah oo ugu badan Jarmalka oo ka shaqeynayay barnaamijkan markii kacaankii islaamiga dhacay 1979 badankood way ka baxeen. dagaalka ayaana sii adkeeyey in farsamo iyo qalab laga keeno dibadda. qorshihii ahaa inay Iiraan noqoto dal hormuud ah tiknoolajiyada nukliyeerka ayaa dib u burburay. laakiin kadib duqeyntii Ciraaq iyo cadaadiskii dagaalka waxaa soo baxay aragti ah in Iiraan u baahan tahay tiknoolajiyo casri ah si ay u difaacdo qarannimadeeda iyo mustaqbalkeeda. dagaalku wuxuu si weyn u xoojiyey shakiga caalamiga ee kaliya ku saabsan mashruuca nukliyeerka Iiraan. reer galbeedka iyo xulafadooda waxay ka baqeen in Iiraan dagaalka kadib ay dib u bilowdo barnaamijkeeda si qarsoodi ah. tani waxay bilow u ahayd khilaafka dheer ee maanta ka jira siyaasadda caalamiga ee ku saabsan Iiraan iyo hubka nukliyeerka. si kastaba ahaatee, dabayaaqadii 1980-meeyadii iyo bilowgii 1990-meeyadii Iiraan waxay go'aansatay inay dib u bilowdo mashruuc qarsoodi ahaa. markii ay awoodi weysay inay ku tiirsanaato reer galbeedka, waxay wajahday wadamo kale sida Ruushka iyo Shiinaha, waxayna sidoo kale ka faa'iideysatay shabakadda sirdoonka ee Bakistaan. sidaas ayayna ku noqotay in barnaamijka nukliyeerka Iiraan uu kasoo gudbo 3 marxaladood oo waaweyn. 1. horumarka iyo taageerada Mareykanka. 2. hakadka iyo burburka kadib 1979 iyo dagaalkii Ciraaq. 3. dib u bilaabashada iyo la jaanqaadka Ruushka iyo Bakistaan. barnaamijkan ayaa markii dambe saldhig u noqday murankii caalamiga ee weli ka taagan maanta, maadaama dalal badan ay ka shakiyeen ujeedka dhabta ah ee Iiraan. tan iyo markii Iiraan ay dib u bilowday barnaamijkeeda nukliyeerka 1980-meeyadii waxaa soo ifbaxay khilaafyo waaweyn oo caalami ah. inkastoo Iiraan mar walba sheegtay inay ujeedkeeda tahay koronto iyo cilmi baaris caafimaad, haddana dalal badan gaar ahaan Mareykanka iyo Israa'iil waxay ka shakiyeen inay Iiraan si qarsoodi ah ugu socoto dhanka hubka nukliyeerka.
hay-adaha kormeerka hubka nukliyeerka ee qaramada midoobay waxay bilowday inay si joogto ah u baarto xarumaha Iiraan. Warbixino badan ayaa laga soo saaray tan iyo 2002. Sanadkii 2002 mucaaradkii Iiraan ee dibadda joogay waxay soo bandhigeen xogo sir ah kuwaas oo aan hore loo shaacin. Tan waxay dhalisay shaki weyn waxaana la bilaabay baaritaano cusub. Mareykanka iyo Israa'iil waxay ku doodayeen in Iiraan si ula kac ah u maran habaaminayso caalamka. Khilaafkan ayaana horseeday culays siyaasadeed oo xooggan. Mareykanka wuxuu Iiraan ku eedeynayaa inay jebisay heshiiskii NPT, isagoona ku hanjabaya cunaqabateyn iyo xitaa in la isticmaalo xoog militari. Israa'iil oo la aaminsan yahay inay leedahay hub nukliyeer waxay ku dhawaaqday in aysan ogolaan doonin Iiraan inay noqoto dal hub nukliyeer leh, iyadoo ka baqaysa in ay khatar toos ah ku noqoto amnigeeda. Wadamo Yurub ah sida UK, Faransiiska iyo Germany waxay isku dayeen inay dhexdhexaadiyaan si loo taageero xal diblomaasiyadeed, taasoo keentay wadahadallo badan oo socday 10 sano. Markii xiisadda kor u kacday, qaramada midoobay ee golaha ammaanka ayaana soo rogtay cunaqabateyn adag oo dhaqaale iyo siyaasadda kuwaasoo bartilmaameedsaday bangiyada, saliidda iyo warshadaha Iiraan. Arrintan waxay noqotay mid ka mid ah khilaafada ugu xasaasisan ee siyaasadda caalamiga tan iyo dhammaadkii dagaalkii Qaboobaa. Waxaa jira cabsi joogto ah ee khilaafka Iiraan iyo dalalka reer galbeedka oo isku bedelo dagaal cusub oo ka qarxa Bariga Dhexe, taasoo saameyn ku yeelan lahayd amniga caalamka oo idil. Sidaas darteed, cabashada Mareykanka iyo Israa'iil waxay saldhig u noqotay xiisadaha siyaasadeed ee maanta weli ka taagan, taasoo marar badan sababtay in la kala doorto laba waddo oo kaliya. Sababaha loogu diidan yahay in Iiraan samaysato nukliyeerka waxaa ka mid ah: 1. Waxaa jira cabsi ee Iiraan haddii ay hesho hub nukliyeer oo dagaal ka dhaco Bariga Dhexe. 2. Xiriirka Iiraan, Israa'iil iyo Mareykanka xiisadaha joogtada ah ayaa ka dhigaya mashruuca mid khatar leh. 3. Heshiisyada caalamiga Iiraan waxay saxiixday NPT laakiin waxaa lagu eedeeyay inay ku xadgudubtay. 4. Cunaqabateynta qaramada midoobay, Mareykanka iyo Midowga Yurub waxay ku soo rogeen cunaqabateyn dhaqaale si ay u joojiyaan mashruucani, taasoo xiisadaha sii xoojisay. Sanadkii 2015 waxaa la gaaray heshiis kaas oo dhex maray Iiraan iyo 6 quwadood oo waaweyn. Heshiiskan wuxuu Iiraan ku waajib yeelay inay yareyso kobcinta, laakiin sanadkii 2018 madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ka baxay heshiiska, taasoo xiisadaha sii xoojisay. Intii u dhaxaysay 2021 ilaa 2025 wadahadallo cusub ayaa dhacay, balse badankood waa ay fashilmeen. Xaaladda maanta waxaana weli saaran cunaqabateyn adag. Iiraan waxaa loo arkaa dal khatar ku noqon kara amniga caalamka haddii ay hesho hub nukliyeer. Khilaafka wuxuu u dhexeeyaa xaqa Iiraan iyo horumarinta tamarta nukliyeerka iyo baahida caalamka in laga hortago fiditaanka hubka nukliyeerka. Dooda ku saabsan mashruuca nukliyeerka Iiraan weli waa mid taagan, caqabadaha ugu waaweyn ee siyaasadda caalamka ah.